gaadiidleyda ku dhaqan magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ayaa cabasho xoogan ka muujiyay shidaal la'aan baahsan oo soo food saartay muddooyinkii u dambeeyay. waxay dhibaato aad u fara badan naga haysataa oo saacadan hadda aan taaganahay halkan aan shidaal la'aan ku ahay qoladan kaalmaha shidaalka shubaysa oo shidaalka marba mar iskaga sii darsanaysa dawladuna wax shaqo ayna ka qabanayn oo mataqaana say doonaan u soconaya. marka dawladda waxaan ka codsan lahayn haddaan nahay tagaasleyda magaalada Jigjiga in tallaabo laga qaado kaalmaha shidaalka kolba la iskaga sii darayo wax mataqaana dabagalaba aan lagu hayn. haddaan ka hadlo shidaalka qaaliyoobay waxaan odhan lahaa horta waxaan aad u eedeynaynaa xafiiska gaadiidka ganacsiga oo ka baxay doorkii ay ku lahaayeen magaalada maadaama annaga kabajaaj ahaan waxaan shaqaysanaa kaliya waa 6 aroornimo ilaa 6 galabnimo maadaama habeenkii shaqada naloo diiday shidaalkii nagu qaali garoobay xukuumadda waxaan faranaa inay shidaalka si degdeg ah uga hadasho wuu qaali garoobi karaa wax uu isbedeli karaa uu kordhi karaa laakiin markuu kordhayo wax la isla wada og yahay oo TV-ga dawladdu laga sheego sababtu uu qaali garoobay waa inaan ku soconnaa ogaanaa si guud waxaan leeyahay dhammaan cid kastay qusayso oo ugu horeeya xafiiska gaadiidka ganacsiga mar labaad waxaan ugu soo celinayaa in arrintan wax laga qabto waayo maanta haddaan ogolaano 10 riyaal lagu daray berri konton buu ku boodi doonaa waxaasina wax loo sii dul qaadan karayo maaha. wallaahi dhibaatada bajaajtan ugu haysata shidaalkii waana lagu qaaliyeeyay habeenkii fiid baana la xareynayaa dawladdu de wallaahi waxay ka damacsan tahay ma garan karno annagii dadkii masaakiinta ahaa ee shacabka ahaa baan u turaynaa marka de wallaahi annagu waxaan leenahay waxa laga qabto xafiiska gaadiidka ganacsiga weeyaan hawshani khaasatan xafiiska ganacsiga iyo ama waaxda gaadiidka maalin ilaahay soo gooyo shidaalka waxba lagu darayaa shidaalka sidii loogu talagalay looma helayo nimankan kaalmaha weeyaan wax qaaliyoobay ma jirto annagu lacagtanadu waa bir dollarna wax kuma iibsano dollarkii baa qaaliyoobay weeyna leeyihiin annaguna dal gaar ah aanu nahay dollarna kuma shaqaysano dollarna wax kuma iibsano waka dollar bay iyagu u sababaynayaan laakiin annaga dollar noloshanadu kuma xidhna waka farinta waxaanu leenahay dawladda hadday noqoto hadday xafiiska gaadiidka ganacsiga noqoto hadday xafiiska madaxtooyada noqoto waxaanu leenahay kaalmahan maalin kasta wax ku daraya hana laga qabto. magacay waxa la dhaartay maxamed axmed nuur shidaalka horta shidaalka hadaan ka hadlo shidaalka waxay inagu qaaliyeeyeen marka waxa weeyaan iyadoon shaqo jirin habeenkii fiid la isxareynayo haddana shidaalka ay noogu dareen shidaalka walibana inta badan lama helaba kaalmii baa safsa arkaysa lagu jiraadee marka annagu waxaan ka codsan lahayn dawladda inay shidaalka ay dib u eegaanay يعني ده سيدي سوار إنه يسوع اليان لواتن كي وقع عشان لواتن إمي كارت ده لواتن مو مريا بدي قلب برايس كوسيك عيان مركا عنك عصر لين دولته إن الشدالك أي قيمة ديمس نوع سميان أي كالمان الله السعودان دي كالمو قلب بس ده دونان ويان وحي دونان بورن يان ده يا وهاي مرمرنا كورن ما بهاي نام الشدال مركا الحمد لله إن دولة دوا يكتب كالما sidoo kale mid ka mid ah kaalmaha shidaalka ee ku yaala magaalada Jigjiga ayaana wax ka weydiinay sababaha keenay shidaal la'aanta baahsan. Adarachu salaam no dana no tigan la joogo dawladdu bishiiba qiimaha way goysaa shidaalka iyo kaalmaha waqtiyo badan qiimuhu isma bedelin hal meel unbuu taagnaa bilna uu dalacmi karaa marna hoos ayuu u dhici karaa waxayna ku xidhan tahay qiimaha ay dawladdu goyso. si aanu u raadino xog dheer ah ayaanu booqanay xafiiska ganacsiga iyo warshadaha dowlad deegaanka Soomaalida waxaana cabashada gaadiidleydani ka jawaabay ku-xigeenka xafiiska ganacsiga iyo warshadaha ee dowlad deegaanka Soomaalida mudane Axmed Buubaal. dad ma santi kulay warbaahintu inay la wadaagtaan ba wixii jira bulshada annaguna waan idinka mahad celinaynaa inaad arinta aad waajibkiina aad ka gudataan su'aashii markaan u soo laabtana waxa weeyaan shidaalka sidaan la socono muddooyinkii hore qiimihiisa hoos buu isku dhimayay taana waxaa sababtay suuqa caalamka oo hoos isku dhimi jiray laakiin hadda muddooyinkan dambe waxaa jirta kor u kac dhinaca suuqa caalamka oo kor uga kacay mar dhexdaas uu biiray bay ahayd dhawaanna dadkii uu biiray tusaale naftada oo ahaan jirtay almost ku dhawaad 19 sentin waxaa laga dhigay 22 benziinku waa 23.0 ahaan jireen 25 buu galay taasi waa kor u kac ka jira suuqa caalamka maadaama shidaalka anagu soo saarayna markii suuqa caalamka ka kaco wadanka gudihiisana ka kacaya
qiimaha shidaalkana waxa jaangooya wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha marka waa heer qaran qiimaha waxa jaangooyinteeda iskale annaguna waxaan leenahay dabagalkeega iyo laysasidii loo baahnahay inuu gaadho kaalmaha deegaankeena ku yaalo arinta xafiisku kulli dadaal badan ka galaa oo maalin walba laakiin ganacsi meeshu ka jiro ganacsiga inta badan waxa isku dadaa waxoogaa dustusa inay sameeyaan toddobaadkan soo dhaafay waxa jiray bay ahayd harar iyo areagan bariga Oromiya inuu shidaalku waxoogaa gabaabsi ahaa kulli inuu soo gelin ma dhici karta taayoo looga faa'iideysanayo ayay ganacsato badan isku dayeen inay dhaka u celiyaan marka waxoogaa korkaab ay ku sameeyeen qiimaha iyagu uga faa'iideysanaya fursadda shidaalka gabaabsiga dhaka ka yimiday harar iyo barigan Oromiya sidaad ka warqabteen kulli shalay waxaan qabaa inaad la socoteen suuqa xafiisku dabagalkii maalinlaha uu sameeyay waxa jirtay in arrimahaasi sidii loogu xakameyn lahaa dadaal laga galay shalay ilaa 5 kaalmood oo caasimadda ku yaalo in taqsiir kala duwan lagu ganahay isla markaana lagu soo celiyay halkii loogu talagalay qiimahani waxa marka waxaan oran karnaa waa qiimo suuqa caalamka ka kacay isla markaana dalka ka biirey wax deegaankeena kaliya ku biirama tan ay ganacsatada shidaalka ku aadan ee deegaankeena uga faa'iideysanayeen oo sidaan soo sheegay dabagalkeegina maadaama xafiisku maalin walba ku hayo talaaween aan ka qaadnay baa jira insha Rahmaan gadaalna waxaan rajaynaynaa in halkiis iska soo laabto taa wax ku xidhnaan doonta hadba suuqa caalamka sidoo noqdo waxaan ogsoonahay wax soo saarka anagu umba xadidi doona sidoo kalena isu socodka ganacsiga caalamka iyo saameyn ku leh saameynta u badan waxa ku yeelanayay COVID-kii sanoweyn oo dhaqdhaqaaqa caalamka xakameynta maadaama gaadiidkii isticmaalaya shidaalka kala duwan inta badan ay istaageen baa hoos u dhac ku yimid baahed hadda maadaama furfurnaantii dib u bilaabantay COVID-kiina waxoogaa xakameyn lagu sameeyay ama talaala loo bilaabay ayaa dhacday qiimo koror inuu ku yimaado marka waxa xakameyn doonta kaliya tay ama aan lagu ogaan karaa suuqa caalamku sida uu yahay waxaan anagu aan saameyn ku yeelanayna ma jaangooyintiisana sidaan soo sheegay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iskale annaguna waxaan leenahay hadba nidaamkii loo jaangooyo in ummadda loogu adeego isla markaana dabagal adag lagu sameeyo taana waa shaqo joogto oo xafiiskani oo kamid ah shaqooyinkiisa isu soo wada duub ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga ayaa laga dareemayaa shidaal la'aan baahsan